xaafadda Sanca ee degmada Yaaqshiid ayuu caawa soo gaaray Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Dawle maamulaha xarunta cilaajka Daarutooba imaanshiyaha halkan ayaa dhalisay kadib markii xarunta loogu keenay gabar xanuunsan oo ay reerkeedii ka dumiyeen shayaadiinta waxaana iminka garab taagan ee xaaladeeda la tacaalaya xubno qoyskeeda ka tirsan kuwaasoo la socda dhaqdhaqaaqeeda ugu horeyntii guriga dhexdiisa ayuu sheekha ka bilaabay in gabadha ku dul akhriyo aayaadka quraanka kariimka وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر quraanka ayaa ah kalaamka alle oo aysan marnaba isqarin karin shayaadiinta marka lagu dul daaro sida awgeedna waxaa la ogaaday jinniga gabadhan dhibaya in ay soo dirsatay islaan ay wiilkeedii horay u diiday hase yeeshee markii la soo diray guriga muxuu keenay maxaa taadiga ala jinniya tahay ma iska oo soo gala waa lagu soo adeegsay ya ku soo dhibay sirka ala dhaagay soo dhibtay maxay garabta gabadha naagta ala wiilkeeda diiday haye maxaa soo sameysay sihra ala catara soo sameeyay meeqa xabo ala catara maxaa kale laba gabsaar ayada leedahay sicra uga shubtay mii maqlaysaa aniga ma soo wada saaraysaa haayimay maxaa soo saaraysaa maxaa soo saaraysaa ii sheeg waxaa soo saaraysid ii sheeg baa kur magacyadooda kow laba gabsaar leedahay labo ma soo saaraysaa intaba soo qabo catarka xagee gelisay ayada ma ogtahay catarka meesha kuma oga ya ogtahay catar iyada soo gadato waay kaasa gabadha mid kale ay soo shubay soo bixi dhaqso boorsada soo qaad baan Sacuudiya Sacuudiya سحر 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 كعرمش صع سعودية يا فر بورصة بوبسي فر بورصة وما تفر بوبسي بورصة عطر كان متك إذا لاد ما هنا وجوسه بدل شيء هذا وسوى بدلي يا حقيقة وسوى بدل شيء إيش يا أنت وقاضي يا أنا سعرك صار شوي حقيقي يا وريك روح هذا جيني على سوري باي حقيقي عطرك أنت أكيد حقيقي زي يا بمباسة جيسي صباح بنكروريا شيء دايم وريا صار بنكر ببسي صار ببسي وريا صباح يا متكان وا آوي أنا قرب سار ردينا آوي لو قرب سار قرب سار وريا halkaan kala wada garbsar ay soo qaban kala qaad وريا kala qaad baan ku yiri labada garbsar kala qaad maxaa ku shubtay labadan garbsar intrik ya tahliil ya maxaa loogu talagalay ii sheeg maxaa loogu talagalay inahe ay ku dhimato catarka iyo labada garbasaar waa kuwo ku cusub boorsadeeda iyo guud ahaan reerka aan abid lagu arkin sidaas ay tahayna waa wada jadiid aan la isticmaalin sida ay xaqiijinayso gabadha walaasheeda la dhalato acuud billahi min shaytaani rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga Faadumo Qaasim gabadhan walaashay waay ayaan horaan waxa laga soo baxshay ayaan hore shiiq noo imaado xoogaa musbaari iyo sakiiman iyo waxa laga soo saaray hadana hadda maanta
waxay sheegtay inay garbasaaradaas iyo catar iyo barafuun ayaan weli ku arkin guriga ay ka soo saartay marka caafimaad ilaahay siyaaleena sheeqana khayr Allah siiyo way ugu cusubina weli waxaan aragna ma si kastaba Sheekh Cabdilaahi Cumar Cabdi Daawle ayaa wacad ku maray in ay fashilinayaan si kasto isku maldihiyaan shayaadiinta ilaahay baa Allah subhanahu wa ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala saameynaga soo qaaday reerkan muslimka ana keenay gabadha muslimada ay ku dhibaataysneed ama shaytaan maaragtay la soo deegsaday jinna maaragtay sixir kala duwan u keenay catarka aad arkayseen iyo garbasaarada aad arkayseen oo ayada baan iska lahayn loo geliyo meesha ayada dharkeeda ku jireen xaqiiqatan taas waxay tusinaysaa ama daliil ay u tahay saaxirintii awoodooda inay maaragtay fashilantay ama waxyaabaha ay sameeyeen inay faashil yihiin ay dhamaatay oo kolba wixii ayaga ay ku gaban karaan inay maaragtay ummadda muslimiinta ay u soo maraan ama jidka ayaga isdhihi karaan Allah ilaahay waad u mari kartaan waadna maaragtay isku qarin kartaan laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ba maad iskale oo dhagarta iyo maaragtay hagardaamada ay u maleegayaan ummadda muslimiinta ilaahay subhanahu wa ta'ala anaga sababta nooga dhigay kuna fashiliyay aayaadkiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leeyahay shaydaanka dhagartiisi waa daciif inna kayda shaydaani kana daciifan ilaahay baa hor u dhahay saadarteed waxaan ilaahay ka baryay subhanahu wa ta'ala inta saaxirina inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala wixii ugu talgalay hidaayah hanuun inuu ilaahay soo hanuuniyo waan u duceynaynaa insha Allah ta'ala maxaa yeelay waa dad falaagooween shaydaan ku ximbaray intaan ilaahay ugu talagalin hidaayah hanuun in ummadda ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka qabto annagana ciqaabtooda fi dunya inuu ilaahay annaga sabab nooga dhigo fi aakhirana ilaahay subhanahu wa ta'ala bi ta'ala insha Allah ta'ala hada billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa duubistii farsamadii iyo codeyntii Maxamed Yuulka intaan muuqaal ka lamid ah ku kulmi doono haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha ilaabin inaad ku soo biirto page-keena internetka si ay ku soo gaaraan muuqaalada aan halkan ku soo daabacno